hadlayso. wuxuu ku dhahay guriga ku sii geynay xaafada Quustoria kadib waxba ii soo gaday oo dadka maaragtay ku sarqaamayo oo miirku ka tagayo marka cabitaanka aan cabay baa igu dambeysay bayna miir dhawn bay igu dambeysay kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisa keenay wuxuu iga duubay filin anigoo maaragtay aan hayn axay waa wax laga murugoodo amba waa arrin aad u xanuun badan waa gabadh sheegaysa inuu wiil taxi saaray kadibna markii uu dhaxda sii waday intuu siiyay wax lagu suuxo amba cabitaan kadibna geystay gurigiisa markii uu gurigiisa geystay u galmoodana wuxuu ka duubay muuqaal kaasi oo kaga qaadanay madax furasho lacag ah balse saaxiib intaad muuqaalkan noo gudagalin waxaan kaa codsanayaa inaad fiidiyoga like saarto siina share garayso soo kala barteena YouTube-kan ku leenahay Cabdalla Deeqsina subscribe ku samee walaal waa naga codsi ee wax qasab maaha waayo subscribe waxay noo tahay dhiirigelin amba shuruudaha YouTube-ka oo heer ka gaadhnay amba meel target noo ahayd oo gaadhay balse dhinaca kale fiidiyoga markaad like saartana waxay noo tahay in dad badan oo sidaada oo kale u wanaagsan haw sii gaadho siina share garee muuqaaladan iyo muuqaalada kale soo galno YouTube-keena Cabdalla Deeqsi iyo soo kala barteena Facebook ee page-ka ee Cabdalla Xuseen saaxiib waxaan ideenahay raanadal mucjiso ah oo ku dhacday gabadh Soomaaliyeed gabadhaas oo sheegaysa inay wiil hay isbarteen kadibna ku qaaday gaarigeeda ugu dambeyntiina wuxuu geeyay gaarigiisa baan u jeedahay ugu dambeyntiina wuxuu geeyay gurigiisa intuu si suuxiyay oo gaariga ku siiyay cabitaan kaas oo dabcan ku lagu sakhraamayo oo hanan miir doorsan ku dhacayo khamro iyo wax lamid intuu siiyay ayuu kadibna geeyay gurigiisa ugu dambeyn markii uu la galmooday oo taraba 4 jeer ka badan hawgalmada kaga cilcishaday ayuu wuxuu ka duubay muuqaal kaas oo u siiyay lacag kaga qaado balse waxa ugu dambeyn u sheegay gabadhii inuu hadii hay lacag sabixin weydo lacag fara badan haw reerkooda tusayo muuqaalkan amba saw dadka kale asxaabteeda u share gareynayo waxay ku noqotay gabadhii wax mucjiso ah waana wax aad looga xumaado run ahaantii ugu dambeyn waxay sheegtay gabadhii inay aad uga argagaxday hayna dhibaato badan ku noqotay lacagtiina ay bixisay waa kan codkeedii iyo dhageysa haboon kadib waxba ii soo gaday oo dadka maaragtay ku sarqaamayo oo miirku ka tagayo isaga cabitaan bii soo gaday animaan ogeyn inuu wax ku soo daray miir dhawn bay igu dambeysay kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisa keenay wuxuu iga duubay filin anigoo maaragtay aan hayn qof maaragtay subhanallah war dadka san u galaya hablaha Soomaaliyeed miyayna hooyo dhalin miyayna gabadhi la dhalan walaasheeda miyuusan aabihii hawnan xataa qof islaam ahayn qofkan islaamnimo way ka dheertahay waayo wuxuu lacag u galay darteed gabadh walaashii oo kale inuu dhibaateeyaanba uu rikaateeyo wuxuu sidoo kale ka duubayaa muuqaal foolxumo ah oo galmaa gabadh walaashiya bal haba dhacda inuu galmoodo oo shaydaanku ha qaadee maxaa ku kalifay inuu muuqaal xun ka duubo subhanallah bar iska daa inaad xataa muuqaal ka duubtay inaad galmoota waa shay xaaraan adduunkana diinta islaamkana aad kaga baxayso waayo qofka sinaysta kama mid aha ummadda Nabi Maxamed oo qof si xun in loo boqol jeeda laga jaro hay ku haboon tahay kaysoo xaasas sinaystana waa qof dhagax in lagu dilo oo rasuulku jideeyay sallallahu alayhi wasallam ayad qur'aan ay tilmaamayaan balse kan waxa uu kaga sii daray intaasoo dhan waxa uu ka duubay muuqaal galma ah kuwaasi oo ah ugu dambeyntii oo sida ay sheegtay lacag madax furasho ah ku weydiistay subhanallah waa mucjisooyinka ugu waaweyn ee ka dhacaya dalkeena waxa soo badanaya sanadii ugu dambeeyay in hablaha Soomaaliyeed la kubsanayo kadibna qoorta laga goynayo iyo in la kubsanayo oo inta wax la suuxiyo amba wax la siiyo darooga kadibna muuqaal galma ah laga duubayo oo la oranayo lacag intaas bixi labaduba dabcan isma dhaawaan inkastoo ay dilka dhaanto oo haddana nooshay hadlayso walaasheen amba gabadha Soomaaliyeed haddana waxay aad ugu dhibantahay amba ugu dhibaatonaysaa waa qisadan ku dhacday ee lacagta afraha badan hayna awoodin looga qaaday waxay si sheegtay inay xataa haysan awoodi karin inay familigeeda iyo reerkooda ay ogeysiiso magaceedana dabcan way qarisay bas saaxiib aragtidaada waafiga comment-ka noogu reeb muuqaalka like saar sina share garee YouTube-kana subscribe saar